buuxsamay madaxweyne farmaajo xaaladda guud ee dalku waa sidee maxaase xal u noqon kara Soomaaliya in la helo dad ama koox xoog leh oo wadanka intay gees ka bilaabaan gees kale uga baxa oo wadanka ku qabsada xoog talabaad waxay tahay in la galo wada hadal oo marka ay isla ogolaadaan inay qaran noqdaan waxaanu eegaynaa sanadkaasi wixii isbedel dhacay siba arrimaha ammaanka iyo dhageystayaasha waxa ay la tahay madaxtooyada magaalada Muqdisho waqtigan waxa ku sugan wariyaasha BBC-da oo wararkaasi oo tafaftiran la siinaya waxaad kaloo maqli doontaan Mareykanka oo duqeyn ku dilay ilaa 100 qof oo ka mid ah dagaalyahana taageera dawladda Suuriya hogaamiyaha mucaaradka Bangladesh oo laba jeer wadanka ra'iisul wasaare ka noqotana 5 sano ayaa lagu xukumay waxaad kaloo maqli doontaan dawladda Itoobiya oo cafisay journalist 6 sano xirnaa iyo wax soo saarkeedu waxa weeyaan 6,000 oo neef oo ari ah shiftigiiba ilaa 2,000 oo neef ayaa lagu qali karayaa mas'uuliyiinta warshada hilibka ee Jigjiga oo wax soo saarkooda uga warramay BBC-da magaalada Hargeysa oo lagu qabtay shir sare oo looga hadlayay loogana tashanayay ka hortagga tahriibka qaramada midoobay ee Nigeria waxay u codsatay malaayiin dollar oo lagu gargaarayo dadkii ay saameeyeen colaadda Boko Haram ay dabada ka wado iyo dhismaha taariikhiga ee dalka India ee Taj Mahal oo laga dayrinayo iyo wararka isboortiga halkani waa BBC London saacadda soo socda qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan Axmed Cabdinuur iyo barnaamijka soo diyaariyay waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waa kan aadan saalimiin maasanid Cabdinuur warbaahinta wadanka Suuriya ayaa waxa ay dhaleeceeyeen weerar lagu qaaday ciidamada oo isbahaysigu hogaamiye ee Mareykanka oo ay ku qaadeen bariga Suuriya waxa ay ku sheegeen weerarkaasi lagu qaaday gobolkaasi inuu yahay duulaan lagu taageerayo argagixisada saraakiil Mareykan ayaa waxa ay sheegeen isbahaysigu hogaamiye Mareykanka in Suuriya ay ku dileen ilaa iyo 100 ciidamada taageersan dawladda weerar lagu qaaday xarumo maxalli ah oo ay leeyihiin xoogagga dimuqraadiga ee Suuriya ee Mareykanku uu taageero la taliyayaal Mareykan ayaa waxa ay markaasi la sheegay inay ka howlgalaan saldhiggaasi weerarkaasina uu ahaa mid aargudasho camala kuwa taxliiliya arrimahaasi ayaa waxa ay sheegayaan in shilkani uu hoosta ka xariiqayo sare u kaca qataraha ka imaanaya isku dhacyada dhulka ka dhaca ee qaybo badan kala dhaxeeya ciidamada oo ay ku jiraan Mareykanka, Turkiga, Suuriya, Ruushka iyo Iiraan dalalkaas ayaa dhammaantood waxa ay sheegeen in kooxda dawladda Islaamiga la jibiyay sida wararka Suuriya dawladda Suuriya waxa ay qaaday 4 maalmood oo duqeyn xagga cirka ah goobaha go'doonsan ee duleedka bariga Quuta magaaladaas oo ku taala magaalada Dimashq duleedkeeda korjoogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in dad ka badan 20 qof lagu dilay duqeyntaasi ugu yaraan 6 bartilmaameed oo kala duwan oo la weeraray goobjoogayaashuna waxa ay sheegeen in wadooyinka ay dhoobnaayeen haraaga dadkii duqeyntaasi ku dhintay iyo gawaari burbursan dad lagu qiyaasay 400 oo kun ayaa waxa ay ku nool yihiin bariga magaalada Quuta kuwaasi oo dawladdu ay ku soo rigtay cunaqabatayn iyo go'doomintaas oo ka dhigtay in cuntada iyo dawadu ay ugu yaraan halkaasi ka dhigaan inaanay suurtagal noqon in la gaarsiiyo xubin ka tirsan dawladda hoose oo lagu magacaabo Iyaad Yuusuf ayaa waxa uu codsaday in beesha caalamku ay xaaladda soo farageliso tan iyo bilowgii kacdoonka waxaan ku baaqaynay joojinta duqaynta iyo dilka dadka shacabka ah maamulka marna ma xushmayntaas waxaan qaramada midoobay weydiisanaynaa si gaar ah inay door uga ciyaarto iyadoo sharciyadeeda adeegsanaysa si rayidka loo difaaco dagaalkana loo joojiyo kaas oo ay ku dhimanayaan dadka ku nool bariga Quuta وهذا ما لم يستجب له النظام سنطالب الأمم المتحدة بشكل خاص بلعب دورها hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee wadankaasi Bangladesh Khalida Zia ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii musuqmaasuq lagu helay ammaanka ayaa aad loo adkeeyay guud ahaan magaalada caasimadda ee Dhaka halkaas oo ay dacwadu ay ka soconaysay xubin sare oo xisbiga siyaasadeed ee Zia xisbigaasi oo lagu magacaabo BNP ayaa waxa uu ku qeexay habka dacwadda ay u dhacday mid aan cadaalad ahayn isagoo ku sheegay inay qorsheynayaan inay mudaharaadyo dhigaan maalinta Jimcaha kiiskaasi looga soo horjeeda Zia oo horey u soo noqotay ra'iisul wasaaraha wadankaasi haatana ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa waxa uu ku lug leeyahay lacag loogu deeqay hay'ad dhinaca samafalka carruurta ka shaqeysa dambigaasi lagu helayna waxa uu ka dhigayaa inaanay u tartami karin doorashooyinka lagu wado inay dhacaan dabayaaqada sanadkan
madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa la kulmi doona wafdiga kuuriyada waqooyi ay ku jirto gabadha la dhalatay hogaamiyaha waddankaasi inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada ee qaboobaha dhacaya. laakiin wasiirka midnimada kuuriya ayaa waxa uu sheegay arrimo muhiim ah inay jiraan oo ay ku jiraan buu yidhi dib u furidda goobta warshadaha wadajirka ah ee waqooyiga iyo koonfurta iyo in laga wada hadli doono Seoul in ay doonayso in shuruudaha amni iyo kuwa nukliyeerka lala yimaado. magaalada Pyongyang bandhig ballaaran oo military ayaa lagu soo bandhigay munaasabad furitaan ah kaas oo lagu soo bandhigay gantaalaha qaaradaha isaga kala goosha ee bolostikada loo yaqaana taasoo muujinaysa in waqooyiga kuuriya ay awood u leedahay inay garaacdo guud ahaan gudaha dhulka Maraykanka. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Maraykanka Mike Pence oo yimid koonfurta kuuriya ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay waxaana halkaasi u yimid jimcihii si uga qayb galo ciyaaraha halkaasaan ku celiyo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence oo yimid kuuriyada koonfureed si uga qayb galo xafladda jimcaha ayaa mar kale ku celiyey in dhammaan tallaabooyinkaasi oo dhammi ay miiska saaran yihiin kuwaasi oo lagula tacaalayo nukliyeerka iyo khatarta gantaalaha ee kuuriyada waqooyi. Allow me to just assure you and the people of South Korea. ii ogolaada inaan idiin xaqiijiyo adinka iyo dadka kuuriyada koonfureed in Maraykanku uu garab istaagi doono dadaal culayska ugu badan lagu saarayo kuuriyada waqooyi ilaa la gaarayo waqti ay ugu dambaysta si joogto ah oo aan ka noqosho lahayn ay isaga dhaafayaan damacooda hubka nukliyeerka iyo sawaariikhda boolistiga. ugu dambayntiina wakiilada Maraykanka ee South Sudan ayaa BBC-da u sheegay in caqabataynta hubka ee Maraykanka ee dalkaasi lagu soo rogay in loo baahan yahay inay u dirto fariin cad dowladda madaxweyne Salva Kiir taas oo markaasi iyadu wada hadal nabadeed. Michael Marow oo mas'uulka arrimaha Maraykanka ee Juba ayaa waxa uu sheegay in waqtigii diblomaasiyadda wanaagsan ay haatan dhamaatay loona baahan yahay in dowladda South Sudan ay hoggaanka qabato. Faaladiisa ayaa waxay daba socotay hadal qoraal oo ka soo baxay safiirka Maraykanka ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa Nikki Haley oo lagu sheegay in Mr. Kiir aanu ku wanaagsanayn saaxiib keeni kara xagga nabadda. warkii waa naga intaas aan dib u ka celiyo Cabdinuur. سالمين عاد بعض ما حصلتها وركة سركات كلا صعتان وBBC لندن وديار قروب إذا عندك قيبه هذا كله. waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho oo maanta laga xusay sanad u buuxsamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xubnaha baarlamaanka federaaligu ay doorteen maanta oo kale 8 February sanadkii hore 2017. sanadkan wixii isbedelay iyo qorshihii iyo ballanqaadyadii madaxweynaha ayaanu eegi doonaa. iminka madaxtooyada Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho waxa ku sugan oo warar iyo warbixin noo haya wariyaasha BBC-da Cali Nuur Salaad iyo Maxamuud Cali Maxamed. aan ku horeeyo Cali Nuur Salaad oo marka hore bal warbixin naga siiya maantay iyo magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay. aad u mahadsan tahay haddii aynu ku hormarno xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho saakay si aan la filaynin dadku waxay ku soo tooseen iyada oo wadooyinka waaweyn qaarkood ay xiran yihiin oo ciidamada ammaanku ay halkaasi xireen sababaha lama ogaan balse mar ay ahayd duhuradii ayuu isu socodku magaaladu dib u furmay. haddii aynu ku soo laabanno munaasabadda sanad guurada markii la doortay madaxweyne Farmaajo sidii la filayay in ay dhacaan munaasabado waaweyn oo lagu xusayo maalintaas ilaa iyo iminka ma aanay dhicin. waxaa taageerayaasha Farmaajo ay doorteen qaab ka duwan qaabka oo ku cusub qaabka ay u dabaaldegi jireen madaxweynayaashii ka horeeyay markii ay munaasabad u soo wareegato. waxaanu xusi karnaa in ay meelaha qaar bartamaha magaalada laga sameeyey xarumo caafimaad oo guurguura oo dhakhaatiir ay ku sugan yihiin isla markaana dawooyin ay yaalaan oo dadka aan awoodin inay isbitaalada tagaan isla markaana xanuunka dareemaya ay safaf dhaadheer u galeen. xarumahaas waxaa lagu sharaxay sawirka madaxweynaha iyo maalinta 8 February oo ah maalintii la doortay. sidoo kale taageerayaasha madaxweynuhu waxay xusheen in ay ciidamada qaar la dabaaldegaan iyaga oo halkaasi xoolo geeyey. aynu dib u xusuusanno sanadkii la soo dhaafay iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay waa sanadka uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. warbixintan soo socota ayaan ka diyaariyey.
8 Februari sanadkii 2017 baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorasho dadban ku doortay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isaga oo cod aqlabiyad ah kaga adkaaday madaxweynihii xilka hayay 19 Februari madaxweyne Farmaajo waxa uu ballan qaaday dagaal 2 sano gudahood lagu soo afjarayo colaadda raagtay iyo weerarada dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab 23 Februari waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre oo helay kalsoonida baarlamaanka xukuumadna soo dhisay 8 Juun xagga siyaasadda dibadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay qaadatay go'aan dhexdhexaad ay kaga noqotay xiisadda khaliijka balse qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay go'aanka dowladda oo taageeray isbahaysiga khaliijka 11 Oktoobar madaxda dowlad goboleedyada ayaa Kismaayo kaga dhawaaqay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxa ayna dowladda federaalka ku eedeeyeen in ay burburinayso dowlad goboleedyada gabagabadii Agost dowladda Soomaaliya ayaa Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa jabhadda Itoobiya la dagaalanta ee ONLF waxaa ka dhashay carab bulsho meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahna mudaharaadyo ayaa ka dhacay dowladdu waxa ay sheegtay in ay fulinaysay heshiis ay dowladdii ka horeysay la gashay Itoobiya guddi uu baarlamaanka Soomaaliya u saaray arrinka ayaa sharci darro ku tilmaamay 14 Oktoobar qarax weyn oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday ayaa ku qarxay waddo aad ciriiri u ah 512 qof ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen cidna ma aanay sheegan mas'uuliyadda qaraxa balse dowladdu waxa ay ku eedeysay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab waxaa loo aqoonsaday qarax argagixiso kii ugu weynaa ee Afrika ka dhaca 17 Janawari madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa socdaal ku maray deegaano ka mid ah Puntland iyo Galmudug waxaa loo soo dhaweeyey sidii loo soo dhaweeyey markii la doortay madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay mashaariic fara badan balse waxa ay su'aashu ka taagan tahay sida ay u hirgeli karaan mashaariicdani waana su'aal taagan oo laga qabo guud ahaan maamulkiisa hal sano kadib waa tahay cali aad baa u mahadsan tahay warbixin tafaftiran baadna siisay sii wad waa hagaag intii lagu jiray muddadan sanadka ah dadku waxa ay ka dhowrayeen madaxweynaha in uu wax badan ka bedeli doono xaaladda ammaanka dhaqaalaha iyo sidoo kale waxyaabo badan oo ku jiray markii uu ololeynayay ballanqaadyadii uu sameeyey waxaan mikrofoonka la dhex maray dadka Muqdisho qaar ka mid ah waxaan weydiiyey in ay wax iska bedeleen sanadkii la soo dhaafay noloshooda iyo in kale qaar ka mid ah ayaynu wada dhegaysanaa magacii waxaa la yidhahdaa Shiine Maxamed Cali oo degan magaalada Muqdisho runaantii madaxweyne Farmaajo waxyaabo badan u qabsoomay runaantii sida amniga runaantii qaraxyo faraha badnaay Muqdisho waa ka yaraada sahan fileeno laakiin hal mid madaxweynaha oo ah wadooyinkii magaalada Muqdisho baabuurtii amreynay waxa waaye runaantii meel kasta isgoyska walba oo magaalada Muqdisho ka mid ah way xirxiran yihiin madaxweynaha Soomaaliya wuxuu noo ballanqaaday wuxuu sameeyay ballanqaadyo badan si uu bulshada u soo kasbado uu doorashada ugu soo guuleysay ballanqaadyadii uu sameeyay qayb kamid oo fuliyay qayb kamid wili muusan fuliyay wuxuu ka gaab sameeyay ama waxyaabaha aan u suurtagelin inuu maanta uu kala qayb qaato bulshadiisa ama uu sarf qaad waxa kamid dhanka amniga oo wili dhaleeceen ay ka taagan tahay hadii aan fiirino dhanka amniga oo wadooyinka oo isku xun yihiin wadooyinka oo mararka qaar oo la xiraayo kala midalan adigoo maanta arday jaamacadda aad u socotid waxaad arkaysaa wadadii uu xiran wariyaha BBC-da Cali Nuur oo toos khadka magaalada Muqdisho ugu jira oo jooga Villa Soomaaliya waa madaxtooyada magaalada Muqdisho nabadda iyo ammaanka Soomaaliya furo weyn waxa uu ah ciidan qaran in la helo oo hanta xasilinta iyo difaaci waddanka arrimahaas waxa aad loogu baahan yahay isfaham iyo qorshe heer qaran ah waxaan la soconaa in dhawaale shir madaxeedkii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka oo baryahan Muqdisho ka socday oo lagu qorsheynayay bal midaynta amniga dalka cali haddaad ii dulmarto shirkii madaxda iyo arrimihii amniga ee looga hadlayay xaggee wax marayaan
madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan gole ay leeyihiin oo golaha amniga qaranka la yidhaahdo ayaa ku shiray muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxyaabihii ay isla soo qaadeen sida aadka ah looga hadlayna waxaa ka mid ahaa arrinka ammaanka waxaanu ka warqabnaa in shirkii london waxyaabihii ka soo baxay ay ka mid ahayd isku dhafka ciidanka iyo dib u qaabaynta iyo sida loo qaybsanayo tirada ciidanka arrimahaas ayay madaxdu si aad ah u jeejeexeen waxaynu ka warqabnaa marka ammaanka laga hadlayo in uu ahaa waxyaabihii ugu badnaa oo dowladdan ama caqabadihii ugu badnaa farmaajo soo wajahay sanadka uu madaxweynaha yahay sida aynu ku maqlaynay dadka aynu weydiinay sida ay u arkaan waxqabadkii madaxweynaha waxyaabihii ay ku dhaliilayeen ama ay dareemayeen in uu gaabis ka jiro waxaa ugu badnaa ammaanka sidaa darteed waxyaabihii waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa oktoobar 14keedii markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay isgoys aad ciriiri u ahaa oo isgoyska sooba la yidhaahdo dad 500 oo qof ka badana halkaas ku dhintay meeshii ayaan dib u booqannay waxaana kula kulannay qaar ka mid ah dadkii ay waxyeelada soo gaartay warbixintan soo socota ayaan ka diyaariyey halkani waa isgoyska soobe waxaa laga dareemayaa zaxmad aad u xoogan waddadu waa mid aad u mashquul ah inta badan dadka halkan ku ganacsada ayaa goobjoog u ahaa ama ay waxyeello ka soo gaartay weerarkii oktoobar ee loo adeegsaday gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey aniga waxaan ka mid ahay dadkii ku ganacsanayay xarumahan sarta sooba hoosteeda bartii uu qaraxa ka dhacay ayaan kula kulmay cabdifataax axmed barkhadle oo 28 jir ah waxaa wejigiisa ka muuqanaya dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa barkhadle waxa uu halkan ku haystaa farmashiye kaas oo ku soo duldumay markii uu qaraxa dhacay waxa uu iiga warramay xusuustiisa waxaan ku war helay anoo fadhiyo oo dhulka fadhiyo ayaan ku war helay kadib waxaan arkay mugdi badan anigoo aanan haysan oxygen aanan haysan anigoo xilligaas ku jiro xaalad aanan dareemi karin aanan qiyaasi karin kin aniga ma aanan maqal wax juga xilligaas oo qarax dhacay ma aanan maqal laakiin waxaan dareemayay markii aan arkay mashaqada ay haysato kaligay wax aniga shakhsiyan ee gaar ahaan u maleynayay laakiin waqti kadib waxaan ogaaday waxa dhacay inay qarax yihiin waxa uu ganacsigiisa dib u furay bishii Janaayo inkasta oo aanu wali qabin kalsooni ammaan oo buuxda haddana waxa uu ii sheegay in uu ilaahay talada saartay qaybo badan oo ka mid ah dhismooyinka ku hareeraysan isgoyska soobe dib ayaa loo dhisay ama hadda ayuu dhismuhu ku socdaa waxaana taasi ay muujinaysaa ad adayga ay dadka muqdisho ka dhaxleen dhibaatada ammaan darrida ah ee soo noqnoqotay My vision is to defeat al-Shabaab within the next 2 years. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilooyin yar kadib markii la doortay bishii February waxa uu ballan qaaday in kooxda al-Shabaab uu ku soo afjari doono muddo 2 sano ah gudahood hase yeeshee dadka indha-indheeya arrimaha ammaanka ayaa aaminsan in ay adag tahay in al-Shabaab looga adkaado muddada uu madaxweynuhu qabsaday xasan sheekh imaam waxa uu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho dalkan guud ahaantiis waa dal ballaaran oo dumay si aad dib loogu dhiso wuxuu u baahan yahay laba mid u baahan yahay in la helo dad ama koox xoog leh oo wadanka intay gees ka bilaabaan gees kale uga baxa oo aan wax ka horeeyay oo institution iyo dawladnimo iyo nidaam system aan fiirinin oo wadanka ku qabsada xoog waa okay waa talabaad waxay tahay in la galo wada hadal oo dadku ay is aqbalaan Soomaaliyeed oo marka ay isla ogolaadaan inay qaran noqdaan oo marka dadku ay dawladda hubka ay haystaan ku soo wareejiyaan oo ciidamo qaranno sax ah oo kalsooni lagu qaba la dhiso oo marka institution shaqeynaya la sameeyo hadda marka saas lama sameeyo dawladdu xoog ma qabto oo ay gees inta ka martay gees kale uga baxdo dib u heshiin ma sameynayso oo dadka kalsooni kama kasbanayso haddaba dadaalada ay dawladdu qaaday waxaa ka mid ah in la dardargeliyey howlgallada ay fuliyaan ciidamada isku dhafka ah ee loo bixiyey xasilinta caasimadda kuwaasi oo baara shacabka iyo baabuurta Muqdisho Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho cali aad baad u mahadsan tahay iminka adiga iyo maxamed cali iyo waxa aad joogtaan villa Soomaaliya kulleyba adeed xuskiina maanta waa socda sanadka u buuxsamay madaxweyne Farmaajo marka maxaan filaynaa oo soo socda maanta iyo caawa iyo dabaaldegyo waaweyn iyo ma muuqato in madaxtooyadu ay u dabaaldegi doonto sanadka ay qaadatay balse BBC-du sideeda gaarka ah ayay kula xisaabtamaysaa
waxaa jiri doona oo dhegaystayaasha iyo dadka baraha bulshada nagala socda BBC-da waxaan ugu bishaaraynaynaa waraysi gaar ah oo BBC-du ay caawa ka qaadi doonto madaxweynaha. waxaa kale oo dadka facebooka nagala socda gaar ahaan baraha bulshada si toos ah ay caawa inooga daawan karaan barta facebooka ay BBC-du ku leedahay iyaga oo madaxweynaha su'aalo soo weydiin kara. ma aha BBC-du in iyada ay su'aalo weydiin doonto oo keliya, dadka ayaa si toos ah su'aalo u soo weydiin doona. madaxweynahana sidaanu ka warqabno dadka inta badan hadla ma aha. taana waxay fursad u noqonaysaa in Soomaali badan oo dunida dacaladeeda kala jooga ay su'aalahooda iyo waxyaabaha ay qabaan ay madaxweynaha weydiiyaan, isagana uu si toos ah halkaas uga jawaabo. cali nuur salaad wariyaha BBC-da magaalada muqdisho iyo maxamuud cali maxamed oo bila Soomaaliya jooga oo nooga warramayay xuska maanta sanadku ugu buuxsamay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. idaacadaha soo socdana waxaad ku maqli doontaan dooda iyo falanqayno iyo aarada dadweynaha ee ku saabsan sanadkaasi xilka uu hayo madaxweyne farmaajo. warar kale oo Soomaalida iyo gobolka ku saabsan ayaa noo soo socda. markaanse waxaan u garaynaa Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa laanta gargaarka bini'aadanimada u qaabilsan ayaa munaasabad ballaaran waxay ku qabatay caasimadda waddanka Nigeria magaalada Abuja. caalamka waxaa laga codsaday $1 milyan oo dollar lacag gaaraysa. waxaa la doonayaa in lagu gargaaro malaayiin qof oo ay saamaysay colaadda kacdoonka ay waddo kooxda islaamiga ah Boko Haram oo ka socota muddo 10 sano ku dhow deegaanada gobollada waqooyi bari ee dalka Nigeria. Abuja warkan waxaa nooga soo diray wariyaha BBC-da Isxaaq Khaalid. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa sheegay in xaaladda adag ee bini'aadanimo ee ka taagan waqooyi bari Nigeria ay tahay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara dunida, iyadoo sanadkan 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. dagaalka kooxda Boko Haram ee ka wada waqooyiga Nigeria ayaa waxa uu sababay khasaaro naf iyo maalba leh. qaramada midoobay ayaa intaasi waxa ay ku dartay inay jirto cunno yari ba'an, waxaana maanta la bilaabay qorshihii dadka taagta daran lagu gaarsiin lahaa gargaar degdeg ah. si qorshahan loo dhaqangeliyana qaramada midoobay ayaa waxa ay la kaashan doontaa dowladda Nigeria iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah. aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC-da Cabdulqaadir Yuusuf Cali. dalka Bangladeshna garsoore ayaa xukun 5 sano ah maanta wuxuu ku riday hogaamiyaha mucaaradka Khalida Zia. waxaa lagu helay musuqmaasuq. xukunka oo maanta oo Khamiis dhacay ayaa taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradku oo joogay maxkamadda barnaankeeda iyo ciidamada booliisku ay fooda istireen oo isku dhaceen. Zia 2 jeer hore ayay dalka ra'iisul wasaare ka soo noqotay, waxaana ay beenisay eedaha loo haysto. waxay leedahay waa shirqo la doonayo in lagaga leexiyo in aysan ka qayb galinin doorashada guud ee dalka ka dhici doonta bisha December. wariyaha BBC-da Jeremy Givering ayaa warkan nooga soo dirtay, waxaana soo jeedinaya wariyahayaga Bashiir Caato. Khalid Zia waxay sheegtay inaysan wax dambi ah galin, eedeymaha loo soo jeediyeen ay yihiin kuwa siyaasadaysan, balse maxkamaddu waxay ku heshay dambi ah inay lunsatay dhaqaale loogu tabarucay hay'ad xanaaneysa carruurta waddankaasi. waana markii ugu horreysay oo dacwad lagu soo ogo, inkastoo dacwadani loo gudbiyey maxkamadda dalkaasi muddo 10 sano ka hor. kiiskan ayaa waxa uu ka mid yahay dhowr kiis oo loo haysta haweeneydani. dalka Bangladesh ayaa waxaa hareeyay nacayb ku salaysan siyaasadda oo u dhexeeya Khalid Zia iyo haweeneyda ay aadka isku hayaan iminkana ah ra-iisul waddankaasi Sheekh Xasiina. siyaasiyiinta dalkaasi ayaa waxay soo horinayaan nacaybka iyo colaadda u dhexeysa taageerayaashooda, iyadoo ciidamada ammaanka ee waddankaasina la geliyey feejignaan dheeraada. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee waddankaasina waxay cambaareeyeen sida dowladda dalkaasi oo la tacaamulayso dadka dibadbaxa dhigaya. cata aad buu mahadsan yahay. halkaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee BBC London. hogaamiyaha koonfurta Kuuriya Moon Jae-in ayaa la kulmi doona wafdiga Kuuriyada waqooyi ay soo dirsanayso in ay ciyaaraha xilliga qaboobaha ee Olympics-ka ay ka qayb galaan. wafdigaas Pyongyang ka imaanaya waxaa hogaaminaysa gabar la dhalatay hogaamiyaha waddankaas. madaxda South Africa, madaxda South Korea aan ilaahda waxay aad u rumaysan yihiin arrintaas inay tahay mid wax ka taraysa, inkastoo dhinaca kalena waqooyiga Kuuriya maanta iyadoo xusaysay 70 sano oo ka soo wareegatay markii ciidamada qalabka sida la asaasay ay bandhig military oo baaxad weyn ku muujisay xuduudeeda maalin ka hor, marka dhinaca kale Kuuriyada Koonfureedna uu ka furmayo tartanka ciyaaraha Olombikada. dowlatuski military ee ka dhacay caasimadda Pyongyang waxa uu ahaa dabaaldeg weyn qalab military oo kala duwan
ayaa lagu soo bandhigay askartii halkaasi gaadacayaarka ka ciyaaraysay midka ay caanka ku yihiin oo mar walba ay soo bandhigaan ayaa fagaaraha kumanaan ku soo maray. ciidamadaasina markii dambe waxaa salaan ka qaatay hogaamiyahooda Kim Jong Un, halkaasoo isagana ammaan ay huwiyeen. dhoolatuskaas maanta Pyongyang ka dhacay kama muuqanin qalabkii waaweynaa ee militariga lagu soo bandhigayay, inkasta oo taangiye iyo qalab kaloo militari iyo gantaalaba ay jireen. waxaase hogaamiye Kim uu u sheegay dadkii fagaraha isugu soo baxay dalka Kuuriyada Waqooyi inuu maantay dunida ka noqday cudud militari oo aan la dhayirsan karin oo weliba kuwa kaalinta koobaad ku jira. waa tahay halka aad nagala socotaana waa BBC London. markaana gobolkan u galeynaya magaalada Hargeysa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shir 4 maalmood lagaga hadlayay tabaha ugu wanaagsan ee wax lagaga qaban karo tahriibka oo ay ku jirtay wacyigelin iyo waayo aragnimo laga korsaday qiimaha uu ku kaco ama uu ugu kaco qofka bini'aadamka ah. waxaa ka qayb galay khubaro ka socotay midowga Yurub iyo ergooyinka kala socotay wadamo ku yaala Afrikada Bari. shirkan oo Hotel Ambassador ka dhacay ayaa waxaa martigelisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland. wariyaha BBC Axmed Saciid Cige oo warbixintan soo socota shirka nooga soo diray ayaa ku bilaabaya Yaasir Suleymaan Cabdi oo ka tirsan wasaaradda gudaha oo sharaxaya ujeedada shirka. shirkan waxaa martigeliyay wasaaradda arrimaha gudaha. waxay isugu yimid dalalka laamooda socdaalka oo dhan, Kenya, Suudaan, Faransiiska, Talyaaniga iyo Belgium ayaa isugu yimid. waxaana la isaga kaashanaya tahriibta sidii looga hortagi lahaa, wax looga qaban lahaa, maadaama noqotay Somaliland waddan la dhex maro oo marna Ethiopia loo gudbo dhallinyaradeenni badda ku dhammaato, marna ay xaggan gurubto inoo dhaafto xaggan iyo Soomaaliya, badaha Yemen iyo ay ku qarqoonto. marka maxaa laga faa'iiday markaasi maxaa la doonaya markaasi ma ku casuunteen dhallinyaradii iyo cid ay khusayso? Axmed, waxaan ku casuunay civil society-ga maalin la tababaray. iminkan waxaa lagu casuumay ciidamada laamaha socdaalka iyo ciidanka xeebaha oo la tababarayo oo lagu xidhayo immigration-da wadamada kale si haddii qof la waayo kale ay sawirkooda ugu gudbiyaan meesha uu sii gudbi lahaa si loo soo celiyo Somaliland u hesho dadkiisa dib ugula soo noqoto. baryahan dambe waad arkayso halkan saad adigu aad sheegtay inta ka soo galaan wajaale dad tahriibayo Ethiopia u badani ay dabadeetana maraano ilaa xagga dabadeetana waxay boosaasi agteedii xagga bariga ay ka dhoofaan. kuwa wad laga qabanayay baryahan arrimahaas oo kale ma laga hadlayo. kuwan kale iyaguna inta ka baxaan halkan ilaa iyo Ethiopia maree Suudaan maree Liibiya maree halka badda Mediterranean-ka Yurub gudba. waxa ugu badan Axmed oo laga hadlayo waa socotada oo iyagu noqday aan garan meel ku socdo dad tagayo oo dalka markay ku soo noqdaan la garanay in inaga la nagu soo tababaro la nagu soo celiyay iyo inay dalka kale waxay ka soo barteen oo fara badan ay European Union ku aad uga hadlayaan inaanu xakamayno Soomaaliland maadaama ay isku xulka weyn ee jeenka labada dalba la soo gudbo. dadka tahriiba waxa u badan dhalinyarada gaar ahaan marka ay shaqo waayaan. ardayda jaamacadda Hargeysa qaarkood ayaa waxa aan weydiiyay ra'yigooda ay ka qabaan baryahan dambe tahriibta. magacaygu Cabdiraxmaan Kiise. tahriibtu waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u xun. dadkii tahriibin waxa kuma hayaan halka markay tageen dhibaatooyin fara badan bay la kulmeen. marka tahriibtu waa wax arrin aad iyo aad u xun, waa in la iska kaashadaa. magacaygu waxa weeye Cabdixaliim Cali Hoobse. tahriibtu waa aafo qaran oo maxay ahayd waddan kasta saamaysa, khaasatan dhulka Soomaaliyeed, khaasatan Somaliland. dhalinyarada Somaliland runtii waxaan oran lahaa anigu halkan baa uga jeedin lahaa waa inaanay dhul kala aadin, waayo waddankooda aaminaan. waddankooda waxa weeyaan waddan maxay soo koraya wadamada horumaray. dadka iyo khayraadka kala badan, khayraadka ayaa yar, dadka ayaa badan. halka dhulkeennu Somaliland khayraadkiisu badan yahay laakiinse dhulkii dadkiisu yar yihiin. saa ogeed waxaan oran karnaa waddan kale inaan aadna waa laga fiican yahay. magacayga waa Ayaan Axmed Maxamed. waxaan oran lahaa tahriibtu waa dhibaato dhalinyarteena haysata, dhibaato badanna ay ka soo gaadho, especially dumarkeena oo la kufsado oo dilma ay ka soo gaadho. waxaan oran lahaa dhulkeena barwaaqa taala, dhulkeena ka faa'iideysano oo ka shaqeysano. magacaygu waa Xasan Suleymaan. tahriibtu dhibaatooyinka leedahay waxaa ka mid ah kuweenii tahriibay waa la adoonsadaa qaarkood, kuwii qudheeda badbaaday Jarmal tigay dhibaato taaleeg baa haysta. marka tahriibtu dhibaatadaas leedahay dadka uga digay iyo dhalinyarta. si kastaba ha ahaatee baryahan dambe ayaa waxaad moodaa in tahriibtu ay soo yaraanayso, dhallinyaraduna ay ku baraarugeen in ay shaqooyin gaar ah ay abuurtaan oo xataa markii hore ay ka faani jireen. Axmed Saciid Cige, BBC Hargeysa. axmed saciid aad buu u mahadsan yahay. markana sheeko gaaban oo xiisala ayaan idiin hayaa. arday dacweeyey jaamacaddii uu dhigan jiray oo muxuu ku haystaa? yaase markii dambe gartii helay. maxamed cabdi ayaa sheekadaasi la socday oo noo sharxaya. maxamed, sanadka markuu ahaa 2000 ayaa Faa'is Sadiiqi
waxa uu arday ka ahaa jaamacadda Oxford. Jaamacaddaas markii uu ka qalinjibiyey waxa uu ku baxay grade-ka la yiraahdo degree-ga la yiraahdo 2 waxa uu yiri si wanaagsan wax looma barin, sidaa daraaddeed ma uunan helin shaqadii uu u tartamayay oo ahayd in uu noqdo qareen heer sare ah. Arrintaana waxa ay muujinaysaa jaamacadaha waaweyn oo lacag fara badan ku bixiya maalgeliya in arday dibadda ah ay meeshan wax ka bartaan ama jaamacadahan wax ka bartaan. Hadda waxaa muuqata markii ugu horreysay in ardaygaasi uu jaamacaddii dacweynayo oo lacagta magdhowga uu ka doonaya ay tahay 1 milyan, waxaana looyarkiisa uu sheegayaa oo la yidhahdo Roger Malalu dad fara badan marka ay helaan digriiga darajada 2 waxay la tahay markay jaamacaddaas ka helaan inay wax weyn gaareen. hase ahaatee ardaygan waxa ay noqotay mid aad iyo aad niyadda uga jabisay, wuxuuna ku tillaabsanayaa inuu dacweeyo jaamacadda Oxford oo ah jaamacadaha ugu waaweyn caalamka. maxamed waad tahay, waa mahadsan tahay. halkaad nagala socotaanna waa BBC London. xaggiina saacaddu waa 5:15 wakhtigan oo kale. waxaanu idin xasuusinaa qodobada wararka caalamka ugu waaweyn mar kale aan ka codsado aadan saalimiin. warbaahinta waddanka Suuriya ayaa waxa ay dhaleecaysay weerar isbahaysiga uu hogaamiye Maraykanku ay ku qaadeen bariga Suuriya, waxaana ay ku sheegeen weerarkaasi lagu qaaday gobolkaasi inuu yahay duulaan lagu taageerayo argagixisada. saraakiil Maraykan ayaa waxa ay sheegeen in isbahaysiga uu hogaamiye Maraykanku inay Suuriya ku dileen ilaa 100 ciidamada taageersan dowladda, kuwaas oo iyagu horey u weeraray xarumo maxalli ah oo ay leeyihiin xoogagga dimuqraadiga Suuriya ee Maraykanku uu taageero. dowladda Suuriyana waxa ay qaaday 4 maalmood oo duqeyn xagga cirka goobaha go'doosan ee duleedka bariga Quuta, magaaladaas oo ku taala duleedka Dimashq. korjoogayaashuna waxa ay sheegayaan in dad ka badan 20 qof halkaasi lagu dilay. waa duqeyntaasi ugu yaraan 6 bartilmaameed oo kala duwan ayaa la weeraray, waxaana dadka goobjoogayaasha ay sheegayaan in wadooyinka ay dhoobnaayeen haraaga dadkii duqeyntaasi ku dhintay iyo gawaari burbursan. hogaamiyaha xisbiga ugu weyn dhinaca mucaaradka ee Bangladesh Khalida Zia ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah musuqmaasuq lagu soo eedeeyay kadib. ammaanka ayaa aad loo adkeeyay guud ahaan magaalada caasimadda ee Dhaka, halkaas oo dacwadu ay ka soconaysay. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu la kulmi doonaa wafdiga Kuuriyada Waqooyi oo ay ku jirto gabadha la dhalatay hogaamiyaha waddankaasi inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada ee qaboobaha. laakiin wasiirka midnimada Kuuriya ayaa waxa uu sheegay arrimo muhiim oo ay ku jiraan dib u furidda goobaha warshadaha iyo weliba sida uu sheegay arrimo muhiim oo ku saabsan ammaanka iyo nukliyeerka. wakiilka Maraykanka ee South Sudan waxa uu BBC-da u sheegay in cunaqabataynta hubka ee Maraykanka ee waddankaasi lagu soo rogay in loo baahan yahay inay dirto fariin cad oo ay u dirto dowladda madaxweyne Salva Kiir, taas oo iyadu wada hadal nabadeed. saalimiin aad buu u mahadsan yahay. markana bartamaha Soomaaliya magaalada Balanballe oo muddo loo fadhiyey waan nabadeed ayaa shalayto heshiis la dhex dhigay 2 beelood oo wada deganaa deegaankaasi muddo dheer colaad xooglina ay dhex martay. heshiiskaas oo la soo dhoweeyey ayaa BBC-da waxaa uga warramay qaar ka mid a salaadiinta deegaanka oo ay ka mid yihiin Suldaan Cabdinaasir Xasan iyo nabadoon Maxamed Daahir Rooble. wariyaha BBC-da Xasan Cali Geele oo odayaasha wareystay ayaa weydiiyey Suldaan Cabdinaasir Xasan bal heerarkii ay soo martay colaadda 2 beelood ee iminka laga heshiiyey. 2 beelood muddo dheer oo ilaa qarni ama wax ka badana ayaa dhibaatadan ka soo dhex jirtay. waxay ka nasteen dowladii dhexe ee Maxamed Siyaad markii ay meeshii ka baxdana barteediina ka sii bilaabatay. marka heshiiskan wuxuu ku yimid waxgaradka 2 beelood oo arkay inaan waxba u harsanayn diin iyo dhaqan iyo dad unuusan u harsanayn. markay arkeen ayaga laftoodana ay saameyn ku yeelatay laxaala ayay gogashaan dhigeen. saasuu ku saabsanaa. colaadan muddo dheer ayay soo jirtay sida aad sheegtay oo xitaa ay ka fac weyn tahay colaadii sokeeye ee Soomaaliya oo dhan ka dhacday. maxaad hadda isla garateen oo intaa hore oo dhan aad garan weydeen? walla waxaan isla garanay qarni walba raggeedaa ka taliya. annagu doorkayagii baan hadda joognaa. marka wixii horey u gudbay raggeedii unbaa jawaabtaas bixin kara. annagu midaan hadda nala siman ayaanu garanay inaanu ka saarno colaadaas xiiraysa oo waxba reebayn diin iyo nafba inaan meesha ka saarno ayaanu isla garanay. nabadoon Maxamed Daahir, colaadan way soo jirtay. waxaad hadda ku heshiiseen waxay tahay wixii dhacaya iyo wixii hadda ka hor dhacayba in diinta islaamka lagu saleeyo. diintuna maaha mid hadda soo degtay oo waa jirtay. marka mar hore maxaa idinka hortaagnaa in heshiis noocan la gaaro?
anaga diinta dad ay ku cusubtaa manihiine diinta horay u taagneed oo ilaahay maaragtay ummadiisa ugu soo dejiyey dadka aqoonta ulana waan ahayn laakiin xaajo walbaaba waktigeeday falantaadaa la yiri kolley biqudratillahi jabbaar ma aysan dhicin hadda ka hor in badana la isku dayey in colaadan lasoo afjaro mana aysan suuraabin inay afjaranto ilaahay mahadi haddaanu ku guulaysanay sidaad sheegayso dadaallo badan ayaa jiray waxaan ognahay in sanadkii 1997 heshiis xabad joojin uu jiray sidii la rabay inuusan u dhaqangelin marka kani maxaad ku xaqiijinaysaan inuu dhaqangeli doono waxaan ku xaqiijinaynaa walaalow maalinkaas dowlad goboleed ma jirin maamul guud oo ama federaal ah dad shacbaha isu yimid dalkooda iska warsadeen waxbay isla gaareen ilaa muddana waa lagu soo dhaqmay inkastoo aysan dhaashiisiiyo dib ka fasastay laakiin maanta inay dhaqan gasho waxaan ku caddaynsi karnaa insha allah inay noo dhaqasho aan ku rajo weynahay hadda maanta waxaa jira maamul xoog leh oo dowlad goboleedkii galmudug dowladii dhaco federaalka maaragtay awood military oo xoog leh oo la kaashan karo ayaa jirta oon hore u jirin suldaan cabdinaasir dagaalkan in badan waxa uu dhex mari jiray amaba dhex marayay maleeshiyaad hubaysan oo labada beelood ka tirsan marka sidee baad ku qancinaysaan inay haatan hubka dhigaan oo nabadaasi laysla gartay ay qaataan meeshan waxaan dhignay annagu gadab adag baan samaynay gadabkaas adag 3 qodob baa ugu dooroon marka koowaad dadka wax tabanhaya xilli aan isla garanay yaan ka soo bilownay 41 nin baa lagu xisaabtamay in la siiyo xaquuqdoodii sidaas markii loo howlgalo odayaashii dhaqanku ay barnaamijkaas qaateen 2 qodob baa iyaga lagu xakamaynaya qodob waxa weeye qofkii qof ku xadgudbo oo dila shareecada islaamka la hor keenaya qofkii xaq ku lahaa xaqa yaa midigta loo gelinaya marka naftooday u darayn doonaan mar haddii qabiil gudaha gashanaya uusan jirin xakamay u noqonaysaa marka labaadna waxaa weeye awood soo qabataanu maanta haysanaa oo ama ciidamadii federaalka ama kuwii maamul goboleedka ama annaga odayaasha oo geed kastoo gala uga dabagelinayna oo isku naarsanay in aanan qabiil ku badbaadan doonin nin dhagarqaba ah oo walaalkii soomaaliyeed oo weliba baxwadaag la ah oo ku deegaana dilay sidaasaana lagu xakamayn doonaa waayo looma turi doono suldaan cabdinaasir xasan iyo nabadoon maxamed daahir roble oo ka horreeyey oo nabad beelo balambale ku dagaalamayay muddo dheer la dhex dhigay uga warramay wariyaha b b c da xasan cali gelle halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london meel kaloo nabad looga baaqayana waa waddanka suudaan oo wakiilka maraykanka dalkaasi u fadhiya b b c da uu sheegay in xayiraadihii hubka ee maraykanku dhowaan uu ku soo rogay dalkaasi looga gol lahaa fariin cad in loo diro dowladda madaxweyne salva kiir fariintaasoo ah in laga midho dhaliyo waawaanta nabadda ee lagu xasilinayo waddanka ee dowladda iyo mucaaradka michael morow sihayaha safaaradda maraykanka ee south sudan ayaa wuxuu yidhi waxaa la joogaa wakhtigii dowladda kiir ay horseed ka noqon lahayd hannaanka nabadeynta waddanka cunaqabataynta hubka ee lagu dhawaaqay siyaasad ahaan waa ay xooggan tahay sababtoo ah waxa ay fariin u diraysaa dowladda south sudan xaqiiqdii waxa ay diraysaa fariin ah in aan ku tirtirsiinno dowladdan in ay hoggaamiso waddo horay loogu wadi karo in nabad loo horseedo dalkan hadda colaaddu waxa ay gashay sannadkii 5aad wakhtigii diblomaasiyadda wanaagsanina waa uu dhammaaday tani waa aragti siyaasadeed oo xooggan taas oo aan u aragno in ay fursad u tahay in hannaanka nabadda horay loo sii wado kaasi wuxuu ahaa wakiilka dowladda maraykanka u jooga ee dalka south sudan arrinta ugu weyn ee lagu haysto madaxweyne kiir waa inuusan si dhabadaacad uga ahayn baa laleeyahay heshiisyadii hore uula galay mucaaradka oo burburay dabeetana colaaddii dalkaasi dib u horiyey dhinacyada ku howlan nabadda south sudanna kama aanay quusan waxaana magaalada adisababa ka bilowday wadahadallo cusub oo south sudan loo qabtay oo ah iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu soo afjari lahaa dagaalka sokeeye ee 4 sano sii dhaafay waxaana wadahadaladani ay ku soo beegmayaan wakhti dulqaadkii uu ka sii dhammaanayo wadamada gobolka iyo caalamka oo aysan dulqaad dambe u yeelanaynin sida ay wax u wadaan siyaasiyiinta siyaasadda iyo militariga ee south sudan halkaad nagala socotaana waa b b c london dalka etoobiyana degaanka faafan dowladda degmada faafan ee degaanka dowladda degaanka soomaalida waxaa ku taalla warshad hilibka farsamaysa oo isla mar ahaantana u dhoofisa meelo ka mid a wadamada carabta warshadaas oo caasimadda jigjiga u jirta 35 kilomitir waxaa ka shaqeeya shaqaalo fara badan waxaa ka faa'iidaysta xoolo dhaqatada iyo ganacsatada waxaana maalgeliyey oo iska leh dad qurba jooga
haddaba maareeyaha warshadda hilibka ee jeesh loo yaqaano ee cabdiqani faarax maxamuud ayaa u warramay wariyaha b b c da cabdinaasir sheekh maxamed xikam. warshaddu waxay bilowday wax soo saarkeedu sanadkii 2016kii December 26keedii. wax soo saarkeedu waxa weeyaan 6,000 oo neef oo ari ah oo loo qaybin karo 3 shifti. shiftigiiba ilaa 2,000 oo neef ayaa lagu qali karayaa. qaybtaasi waa qaybta ariga weeyaan. waxaa kaloo hadda aan wadnaa qaybtii looda oo dhammaystir hadda taagan oo 2 bilood kadib la furi doono insha Allah. qaybta looda waxay maalintii soo saari karaysaa iyaduna 600 oo neef oo 3 shifti ah. halkii shiftiba ilaa iyo 200 oo neef oo loo ah ayay qali kartaa. waxaa kaloo ay qali kartaa ilaa iyo 100 geela hadduu eebidmo. see loo gataa hilibkan? hilibka aanu annagu hadda qalno waa hilibka ariga, waana hilibka isugu jira aricadka iyo idaha. waxaanu u dhoofinaa dalka Dubai, waxaanu gelinaa stocknetka waxa la yiraahdo ama maryaha cadcad baanu gelinaa. waxaanu ka saarnaa urku jirka iyo madaxaynu ka jirnaa. hilibkii oo saafi ah ayaanu dirnaa oo aanu dirnaa Dubai iyagoo oo u dhaxeeya 6 kiilo ilaa 10 kiilo. waxaanu ka dhoofinaa Addis Ababa. dad inteen leeg baa shaqo ka helay warshadan? warshadda waxaa ka shaqeeya taqriiban ilaa iyo 150 qof. warshadani waxaa sheer ku leh ilaa iyo 8 shakhsi u badan dad diaspora ah. dowlad deegaanka aad bay nooga caawintay siiba xagga biyaha, xagga korontada, xagga wadooyinka. waa jirtaa hay-adda Mercy Corps oo hoos timaada USAID-ka inay maalgelintii ugu horeysay ay naga caawintay 2 sano ka hor. marka ma laga yaabaa hantidii la geliyey waqti dhow inay ku soo saarto? dabcan way soo saaraysaa. waxaa aad ka warhaysaa in xooluhu uu yahay resourciga waddanka. iyadoo resourcigaas aanu doonaynaa inaanu marka ugu horeysa dadka reer guuraaga ah ka taageerno oo aan xoolihii ka gadanno. xoolahaas oo iyagu markii hore iyaga oo la dhoofin jiray iyagoo nool, waxaana uga faa'iido badan marka aan anagu qallo. suuqan Dubai mooyeen suuq kale ma heli karo? waxaa jira codsi baa noo maqan dalka Saudi Arabia inaanu u dhoofinno. dhawaanna way soo dhammaanaysaa insha Allah. marka iyadana waxaanu rabnaa inaanu u dhoofinno wadamada kaleete khaliijka. iyadana sidoo kale codsiyo badan baa nooga yimid sida Cumaan oo kaleeto. waddanka gudihiisa suuq maad ka weydeen? warshadu sidaad ogsoon tahay waxaa la yidhahdaa jeesh, waxaa weeye Jigjiga Export Slaughterhouse. waxaan noogu talagalnay dhoofin weeyaan goolkanaga hore. cabdiqani faarax maxamuud maareeyaha warshadda hilibka ee jeesh oo ku taalla meel u dhow magaalada Jigjiga wuxuu u waramayay wariyaha BBC da cabdinaasir sheekh maxamed xikam. halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee BBC London. dalka Kenyana dhakhaatiirta cisbitaalka ugu weyn dalka ayaa waxay ku guuleysteen qalliin horey aanay u samayn. wiil dhowr iyo 10 jira oo gacantu ka go'day ayay gacantiisii meeshii ay ka go'day halkeedii ugu celiyeen markii ay qalliin ku sameeyeen. waa guushii ugu horeysay oo caynkaas oo wadamada gobolka ka dhacla, gaar ahaan marka laga reebo Masar iyo South Africa. haddaba wariyaha BBC da Wanyama Jabasuri ayaa waxa uu Nairobi ku wareystay Professor Stanley Kainga oo horkacayay qalliinkan. waxaana professorku uu yiri This is a delicate surgery because it involves arteries. waxa uu ahaa qalliin aad u nugul sababtoo ah waxay ahayd inaan dib jirka ugu rakibno 2 xidid oo waaweyn. xididadaasi waa kuwa dhiigga xididada yaryar uga soo qaada wadnaha. sidoo kale 3 xidid oo kale ayaan jirka gacanta dib ugu xirnay. kuwaasina waxa ay qaadaan dhiigga aan oksijiinka lahayn si mar kale oksijiin ay uga soo helaan sambabada iyo wadnaha. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaalba leh.
warbixinnadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. wararkii isboortiga ayaa noo soo socda markaanse waddanka indiya oo maxkamadda sare ay amar ku siisay dowladdu in ay la timaado qorshe muddada dheer ee wax ka tara sida loo badbaadinayo ama loo daryeelayo mid ka mida goobaha iyo taalooyinka ugu taariikhda dheer ee waddankaasi iyo dunida guud ahaan oo aad iyo aadna caan uga ah adduunka oo loo soo dalxiis tago waa taajmahale. taaladatan qiimaha badan dhibaatooyin fara badan ayaa dhinacyo kala duwan ka haysta. warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha BBC-da Jill McGovering waxaana soo jeedinaya Aadan Saalimiin. maxkamaddu waxa ay ka jawaabaysay codsi ay soo buuxiyeen kooxaha deegaanka u dooda kuwaasoo dareen ka muujiyey dhismayaal ku hareeraysan Taj Mahal. garsooruhu waxa uu su'aal ka keenay sababta warshadaha iyo hoteelada loogu soo dhoweeyey taalada qarniga 17aad, waxaana uu amar ku siiyey mas'uuliyiinta in muddo 4 toddobaad ay qorshe kula yimaadaan. codsiga dowladda ayaa waxa uu dhigayay in 200 oo geed la jaro, taasoo haatan dib loo dhigay. Taj Mahal waxa ay soo jiidataa malaayiin dalxiisayaala, hase yeeshee waxaa dareen laga muujiyey xaaladda nadaafadeeda iyo caafimaadkeeda siduu ku sii socon karo. saalimiin aad baad u mahadsantahay. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London. kheyrtana dhegeysanaysa wararka caalamkan waxaa ugu waaweyn dowladda Suuriya oo cambaaraysay isbahaysiga Maraykanka uu horkaco oo dilay ilaa iyo 100 dagaalyahano dowladda la jaal ah. militariguna waxay sheegeen ciidamadaasi in ay isdifaacayeen markii ay kuwaasi dowladda Suuriya la jaalka ah ee ay leynayeen. Bangladeshna hogaamiyihii mucaaradka ee Khalida Zia ayaa waxaa lagu xukumay 5 sano xarig ah. waxaa la sheegay in lagu helay musuqmaasuq. madaxweynaha dalka koonfurta Kuuriyana wuxuu martigelinayaa wafdi uga imaanaya dhinacaasi waqooyiga Kuuriya inta ciyaaraha Olympicsku ay socdaan. waa tahay markana waa sheeko kale oo iyo wararkii isboortiga. Axmed Cabdinuur oo barnaamijka soo diyaariyey ayaa ila fadhiya. Axmed, shirkadda farsamadan casriga ah ee Samsung loo yaqaano waxay ka farxinaysaa baa ciyaartooyda ciyaaraha ka qaybgalaya, laakiin ciyaartooyda laba wadan ka socda kuma jiraan ciyaartooydaas laga farxinayo. lama wada farxayo. shirkaddan Samsung waa shirkadaha adduunka ugu caansan ka mid tahay. sidaan ognahay qalabka elektroniga ay soo saartaa telefishinada iyo ay ka mid yihiin telefoonada quruxda badan ee caqliga badan ee smartphones la yiraahdo. alaabtaasi caan ku tahay, muddo dheerna way jirtay. labada wadan ee aad sheegtay Cabdinuurow waa laba wadan oo sidoodaba aan khilaaf iyo muran ka bixin muddooyinkan dambe. waxay kala yihiin Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. meesha arrimahoodu ay ku salaysan yihiinna waxa weeye ayaga iyo caalamka waxaa kala haysata dhibaato la xiriirta dhinaca hubka nuclearka ee ay damacsan yihiin labadaas dalba in ay samaystaan. marka ciyaartooyda iyo nuclearka maxay isaga jireen? wixii waa is soo galeen siday u socotay arrintii ciyaarihii bay soo gashay. haatan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa waxay u yeertay wakiilka Kuuriyada Koonfureed u fadhiya Tehraan. waxay ka istakoonayaan sharikadda Samsung oo dalka Iiraan ciyaartooydiisa ka saartay amaba ka reebtay telefoonada ay ugu deeqayso shirikaddu ciyaartooyda ka qaybgalaya ciyaaraha Olympiga ee Brita ka furmaya Kuuriyada Koonfureed. shirkadana sidaan ognahay Kuuriyada Koonfureed laga leeyahay. wakaaladda wararka Iiraan ayaa sidaas soo sheegaysa. marka ciyaarahan shirikaddu waxay ugu tala gashay telefoon gaar ah
olombigan waxaa la yidhaha galaxy note 8 ayaa la yidhaha waa smartphones waa kuwii ugu dambeeyey sanadkan ayaa ciyaartooyda ka qayb galaysa oo dhan baa la siinaya laakiin waxaa la yidhi kuuriyada waqooyi iyo iiraan ciyaartooydooda hal xaba lama siinayo kuuriyada waqooyi marka iyo iiraan sababta looga reebay waxa ay ku sheegtay shirkaddu waxaa saaran cunaqabatayn jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku soo rogtay dalalkaas marka ma jebin karnay leeyihiin oo ciyaartooydaas waxba uguma deeqi karno wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan afhayeen u hadlay oo la yidhaahdo bahraam qaasimi waxa uu sheegay in ay aad uga ashtakoonayaan arrintan oo uu ku tilmaamay mid damiir xumo ah waayo waxay ka hor imaanaysaa buu yidhi waxyaabihii ay ku dhisnaayeen ciyaaraha olombiga sidoodaba oo ay ka mid tahay inay ka madax bannaan yihiin midab iyo diin iyo isir iyo siyaasad iyo waxyaabahaas oo dhan ciyaaraha olombigu shuqulkuma laha arrimahaas marka taas ayay ka ashtakoonayaan ciyaarahaasi waa ciyaaraha fudud iyo wakhtiga qabobaha la ciyaaro iyo halkaas iyo kuuriya aan kaga baxano kubadda cagta lafteedii waa loo soo dhigtay diirad baa saaran hadda oo ku foorarta mid maxkamad la yidhaahdo canshuur buu la baxsaday iyo mid kale mid ka mida tababarayaasha ugu waaweyn kooxaha ugu caansan dalkan britain ee horyaalkooda ayaa ugu dambeeyey oo duray ingiriiska iyo kubadda cagta iyo laacibiinta lafahantooda iyo muxuu rabay ninkaas waa kuma ninkaas horta waa u imaan doonaa waxaa la yidhaahdaa Arsene Wenger laakiin waxaa ka horreeyey ciyaartooyda waaweyn maaragtay caanka ah lacagta badan leh maaragtay xagga canshuuraha iyo maaragtay maamulka maaliyadda dowladaha ay isku haysteen waxaa ugu dambeeyey Alexis Sanchez oo dhowaan Arsenal ka soo tegay oo Manchester United ku wareegay canshuur badan ayaa maaragtay lagu sheegtay marka wuxuuna ogolaaday inuu bixiyo marka waxaa la yidhi xabsi waa lagaa deynaya laguma xiraayo iska bixi lacagtii waxaa ka horreeyey sidaan ognahay Cristiano Ronaldo iyo maxaan ku idhahda Lionel Messi iyo wiilashan waa 30 jiro iyo wax la mida waana taajiriin durbadiiba haddana laguma karo canshuurta iska wada bixiya intaas waxba ay kala farsamaynayaan baa la leeyahay mid ka soo gasha xagga dacaayadaha ama xayeysiiska ay sameeyaan mid mushaharooyinka iyo lacagaha marka la kala iibsanayo maaragtay wax la qariyo arrimo noocaas ayaa jira la leeyahay marka waxaan maqli jiray qofku markuu waxoogaa lacag helaba waa sii jeclaadaa dadka caadiga ee shaqaalaha iyo waa aragtay canshuurta markiiba ruf waa laga jarayaa dacwo ma qabaan laakiin dadkii ugu lacagta badnaa la dhudhuumanaya shirkadaha waaweyn aad arkaysa xataa adduunka ugu taajirsan oo dowladihii ay is haystaan oo laleeyahay intaasoo canshuura ayaa idinku maqan Arsene Wenger waxaan kaa rabay inaad xoogaa iiga sheegto laacibiinta si khayaama ay ku jirto isku hortuura goolka agtiisa markay kubadda wataan si maaragtay rigooro loogu dhigo taasuu ka hadlay wuxuu yidhi arrintani waxay noqotay buu yidhi ciyaartooyda ingiriiska ah ayaa hadda ku takhasusay buu yidhi shahaadada masterka la yidhaah ayay ku qaateen uu yidhi istuuridda waagii hore wuxuu yidhi ciyaartooy ajnabi ah ayaa istuuri jiray marka ingiriiska intay ka barteen ayay ka badiyeen buu yidhi mid walba marka la soo gaaro xariiqda 18 waa meesha rigooraha lagu helo haddii saas aad u soo agmarto ama taabatoba hore uu ka dhacayaa buu ku leeyahay wuxuu rabaa in penalty la siiyo marka Arsene Wenger wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayay wuxuu yidhi matalan laacibkan Del Alli ee Tottenham u ciyaara waxaa xaddii la siiyey yellow card Liverpool ayay la ciyaarayeen marka ciyaartaas dhulku isku tuura yellow card la siiyey saaxiibkiisna wuxuu yidhi Harry Kane isna waxaa difaaca Liverpool oo la yidhaahdo Van Dijk ayaa wuxuu ku eedeeyey inuu istuuray marka way isku dhaceen
van Dijk iyo Harry Kane marka Harry Kane waa dhacay wuxuu yiri asaga istuuray anigu ma ridin penalty baa saas lagu helay penalty oo saas ku helay Arsene Wenger marka wuxuu leeyahay waxaa jira kiisas badan oo ciyaartoyda ajnabiga ah ay samayn jireen oo noocaas laakiin hadda kuwa Ingiriiska ah ayaa maaragtay ka badiyay arintii laga badiyay aad iyo aad marka wuxuu yiri bishii November oo kale Raheem Sterling oo Manchester City ciyaar ayaa si fiican oo la yaab leh isu tuuray buu yiri marka Arsenal 3-1 looga badiyay markaas penalty ayaa la siiyay Sterling waxaa kaloo sheegay in kooxdan hadda uu ka hadlay Tottenham waxay sahayaan sabtidan moogta Arsenal iyo Tottenham waa ciyaarta aan socodsiin doono marka wuxuu yiri aniga ciyaartoydeyda uma sheegayo istuura marna ma dhahayo yiri si aad hore u heshaan marka dadnimadiina wax kula soo marka kooxdaas u sii digaya wuxuu leeyahay idinkuna istuurinina Harry Kane waa yaqaana istuurida maxaan ku yiraahdaa dalcali waa taas yalowga lagu siiyay marka wuxuu leeyahay yaan la istuurin macnihi halkaas ayuu ka hadlaya waxaa kaloo jirtay laakiin tababaraha Tottenham laftiisa Tottenham uu hadlay Mauricio Pochettino wuxuu yiri in ciyaaraha kubadda cagta marka la ciyaarayo si kastoo aad ciyaartoyda u khiyaami kartid inaad u khiyaamaysid ciyaartayba kamid tahay ku leeyahay waa qayb kamid ah laakiin ay noqotaa wax macquul ah wax oo maaragtay xirfadaysan waa inay noqoto sida aad u xirfadeyn kartid haddii aad isleedahay istuuridan waa waxbaad ku helaysaa isaga waxbaba kama qabo waa iska mubaax uu ku leeyahay laakiin waxaa jirta ninkani wuxuu ka mid yahay dalal aan soo sheegi doono sanadkii 2012 Cabdinuur weeraryahankii hore ee xulka qaranka Ingiriiska Michael Owen ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoyda ka yimaad wadamada South America iyo Spain iyo Talyaaniga iyo ay yani saameyn weyn ku yeesheen istuurida waa meelaha lahaa ciyaartoy dibadda ah Arsene Wenger ayaa istuuri jiray marka Michael Owen waa ku raacsan wuxuu leeyahay wadamadaas ciyaartoyda nooga timaad ayaa istuuri jiray oo saas penalty ku qalqalsan jiray laakiin waxaan mar haddii ay ciyaarahiina dhibayaan magacna dilayaan aan ognahayna kubadda cagta waliba Premier League inay tahay mid qiimo weyn iyo lacag badan iyo taageerayaal badan iyo waxyaabo badan ururka ciyaaraha maamulaya iyo hay'adii xiriirka kubadda cagta Ingiriiska dhawaan waxayba soo saareenba xeerar cusub oo yani xeerarku way jireen laakiin dib ayay maaragtay boorka uga jafeen waxay leeyihiin isniin kasta ciyaaraha waa aragtay sabti iyo axada badanaa Premier League la ciyaara marka waxay ku leeyihiin isniin kasta ciyaaraha markay socdaan waa la duubaa isniinta la daawanaya garsoorayaal ayaa fiirinaya Arsene Wenger kale markuu hadlay wuxuu yiri garsoorayaasha u taala inay wax ka qabtaan arintan marka hadda xiriir kubadda cagta waxay leeyihiin isniin kasta ciyaarihii dhamaadka toddobaadka dhacay sabtida axada cajaladii la keenaya waa la daawanaya ciyaartoydii lagu helo inuu istuuray oo penalty saas lagu siiyay sharciga lala tigsanay waa la ganaaxayaaba laakiin natiijadii waxba ka bedelay natiijadii hadda ma bedelaysay leeyihiin laakiin ciyaartoydaas way natiijada mar hadduu garsooruhu soo saxiixo ciyaartu intaasii ku dhamaatay barbardhac ama koox xiblaya badisay inta badan lagama daba tegi karo haddaan wax kayr caadi aysan dhicin marka khiyaanadan garsooraha la qiyaameeyey waxaa la yidhi waa la fiirinayaa isniin walba waa la daawanaya cajaladihii ciyaartoydii lagu helana maaragtay waxaa dhacaysa in ganaax la saaro intaasoo ciyaarood sida iyadoo reed ama lugusiyoo kale 3 ciyaarood iyo lama qanaada tiiyoo kala imaanaysa la leeyahay qaar lagu fuliyeyna waa jiraan oo hadda la bilaabay Premier League ka tirsan qaar ciyaaraha kale kooxaha heerka kale ka ciyaara ka tirsan ayaa iyaguna kamida marka xiriirku shaqadiisu qabsanaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay khiyaartana dhegeysanaysaay wararkaas isboortiga iyo maxamed cabdinuur iyadaan idaacadii kusoo gabagabaynaynaa waa inoo caawa barnaamijka iyo muusiga iyo salaamaha waxaanse idinka tegayaa hees wanaagsan codkii maxamed bikey
caashaq keliga ku galay qof kula galay axdiyo misana gabay ana wayga go'an tahay axdiyo misana gabay ana wayga go'an tahay way caashaq keliga ku galay qof kula galay axdiyo misana gabay ana wayga go'an